saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dugsiga tababarka Jazeera ayaa halkaasi maanta ku soo dhaweeyay fanaaniinta kooxda Qayladhaan halkaasi ay ku soo bandhigeen suugaan iyo halkudhigyo ay ku gubaabenayaan ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed sida ay uga suulan lahaayeen kooxda al-shabaab gobolada dalka ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay taliyaha dugsiga tababarka xerada Jazeera gaashaan la sare Cabdullaahi oo soo dhaweeyay fanaaniinta isagoo muujiyay ahamiyadda ay leedahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay helaan dhiirigelin iyo wacyigelin dhanka fanka ah halkan waxaan u sheegaynaa waxa ku nool ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waa dugsi tababareed ku soo dhawaada saas ayaan idin leenahay walaalihii jirona soo siyaartay waxaan noo wadeen oo aad ummadan ku dhiirigeliyaysiin walaalihiina oo xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan leenahay ku soo dhawaada waa kuwana ayagana way idin hor fadhiyaan Ambassador Maxamed Xuseen Awliyo ayaa waxa uu xeradaasi ku soo bandhigay gabay ka tarjumaya kaalinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin in dalku ay iyo dadku ay ka difaacaan cadawga hadalka badin maayo maanta waxa noo jooga haliyay wahamuunan wacyigelintiina suugaanta ayaa wax walba ka qatarsan laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego waa in gumaystuhu ku dhaco dahabka ceeriine waa waxa carruurteennii shabaab ciidanka u qoraye oy culimmadii laynayaan oday ciroolaaye waxa caalimdii galay hilbii haada lagu siiyey caalim iyo ugaas kuwa marshee ciidamada laayey calankeena waatay gubeen caadagowsyadiye waa cayan gumaystuhu dirto ciidda iibsadaye shaydaan cimaamada wato ciil qabaa yimide dalkeennii cadaawa qabsaday wanay dharaankiiye Cabdishire Jaamac Ciyaar Jecel ayaa ku dhiirigeliyay ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed in goobaha ay kaga harsan yihiin kooxda al-shabaab ay ka saaraan waxaana uu xusay in fanaaniin ahaan ay kaalintooda ka qaadan doonaan wacyigelinta bulshada dhanka horumarka iyo waliba ka hortagga khataraha kooxaha al-qaacida kuwa baadiyoobay diinta bay ka sheegay inta baaqayga ahay baraawi caalbuur bariye maad uga saartaan waxaan marka ku fakarayaa yada ku hayay waa idinka wey waxaan marka hore dhacnahay sugaynaa maalmaha soo socda asbuucyada soo socda baraawi caalbuur inaanu Qayladhaanta ka qaadno ballan maqalaysa waxaanu ballan qaadaynaa anigoo ah kabiirka Qayladhaan in aanu front line ka tagayno Xuseen oo qorigiisa wata waad aragteen waa kadab aduu hadda ma sheegi doonteen caawana waa sii guuranaynaa aad baan kaga mahadcelinayaa kooxda fanaaniinta Qayladhaan ayaa inta badan suugaantooda waxay ku soo bandhigaan isla mar ahaantan ay ku saleeyaan in bulshada ay fahanto dhibaatada kooxda shabaab ay shacabka Soomaaliyeed ay ku hayaan علي عبد القادر علي تلفزيون قرنك الصوماليات مقدشو